haddii aan ku iraahdo caqligaagu waa sida beerta oo kale oo waad beeran kartaa, miro noocee ah ayaa dookhaagu yahay oo aad ku beeri lahayd caqligaaga? kulankeena maanta kelmadiisu waxay tahay caqligaaga mirahee ku beeran. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaad noqonaysaa waxa aad ku fakarto. haddii wax wanaagsan aad inta badan ku fakarto, waxaa ku badanaya noloshaada kana soo muuqanaya waxyaabihii wanaaga ahaa ee aad ku fakaraysay wax la mida ama u eg. haddiise aad inta badan ku fakarto wax aanan wanaagsanayn iyo waxyaabo aanan noloshaada iyo hore socodkeeda caawinaynin, waxaa inta badan noloshaada ku badanaya ama waaqica aad nooshahay ka soo muuqanaya waxyaabo u eg qaabka u fakaraysay. tusaale haddaan soo qaadano, haddii qof aan siino gabal dhul ah oo aan nidhaahna beero, oo uu soo qaato 2 nooc oo miraha ka mid ah, nooc miro sun ah iyo nooc miraha la cuno miro ka mid ah, galeydoo kale aan nidhaahno, ee uu dhulkii ula yimaado, ma laga yaabaa in dhulkaasi uu shuruud ku xiro ama uu yiraahdo maya mir sun ah sideedaba ma soo saarayo, mana liigu beero, laakiin mirtan galeyda ah ee wanaagsan dadka anfacaysa igu beer inuu yiraahdo ma laga yaabaa? lama sugayo. dhulku waa dhadhaxaad, mirti lagu beero ee lagu waraabiyo ayuu soo saaraa. sidaas si lamid ah caqligaaguna waa dhadhaxaad. ogsoonow, qaabka aad u fakaraysid iyo fikradaha aad ku beeraysid adiga ayaa xor u ah. haddii aad ku beerto caqligaaga fikrad ah inaad tahay faashil, wax matare, aanan waxba qabsan karin, isla markaana aad waraabiso oo fikradaas fikradihii xoojin lahaa aad ku sii kabto, waxay soo saaraysaa fikrado la mid ah inaad waxba qabsan karin, in fashalku noloshaada uu ku bato, inaadan horumar samaynin iyo waxyaabaha la midka ah. idan mirtii hore ee ahayd fashalka ee caqligaaga ku beertay ayaa weynaatay oo korortay oo baahday, isla markaana miraha hadda noloshaada hayso soo saartay. haddiise aad ku beerto caqligaaga mir wanaagsan oo ah qof bini aadama oo wanaagsan oo wax qabsan kara inaad tahayna, waxaa beermaya mirtaas. waxay kaaga baahan tahay waraabin oo ah inaad ku caawiso fikrado la mid ah fikradaas wanaagsan ee ah inaad tahay qof guulaysan karo, wax qabsan kara. iyadana waxay kuu soo saaraysaa mirahaas mir la mid ah mirti aad beertay nooceedii soo saaraysaa. tusaale ahaan, haddaan masago beerno lagama yaabo inaan helno lindhanaan, ma tahay mise maaha? haddii aan cambo beernana ma helayno galey. mar walbana fikradda aad beerato nooceeda ayaad helaysaa waaqicaaga. sidaas ula soco. walidaalika xadiid qudsi wuxuu ahaa, ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhaahdaa ana cinda dhanni cabdii bi falyadunna bi maa shaa. yacni aniga waxa aan u rumaynayaa addoonkayga malihiisa waxa uu ku fakarayo. fashal, guuldaro, baaba, mustaqbal mugdi ah, cabsi, walwal, waaqicaaga ka helaysaa. guul, maaragtay wax qabsasho, horumar, wanaag, khayr, waxaad ka helaysaa noloshaada. walidaalika nabiga yidhaha sal allahu alay wasalam, tafaa'aluu bilkhayri tajiduuh. khayrka malaysta oo saadaalsada waad helaysaan. mafhuum المخالفة wuxuu noqon karaa dadka si fiican fiqiga iyo yaqaan iyo garanaya. haddaan cagsigeed wuxuu noqon karaa haddaad shar iyo balaayo maraysataan waa helaysaan. labadaba diyaar waa. ma tahay mise maaha? walidaalika waxaana la yiri oo laga reebay waxa la yiraahdo baasaysiga. diinteenu mamnuuc waaya balaayo iyo baasaysiga iyo maxaa lagu diiday? waxa lagu diidayaa afkaarta salbiga ah ee aan wanaagsaneyn, negative thoughts kaas inaad beerato si hadhowti aadan u rafaadin. yani negative thoughts haddaad beerato ayagaas ku soo go'aya.
haddaad positive thoughts aad beerato ama afkaar wanaagsan aad beerato ayagaas kuu soo go'ay hadba beerta caqligaaga waxay soo saaraysaa wixii aad ku beertay saa daraadeed xataa waxaana la yiraahdaa oo naloo diidaa ama aan wanaagsanayn baan yiraahdo in riyooyinka aan ku fasirno qaab aan wanaagsanayn dadkuna saasi u badan ogaada qoliyaha tirada badan ee riyo fasirayaasha la yiraahdo ama dadka riyada noloshooda ku socodsiiya waxa la yiraahdaa wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam الرؤيا على رجل طائر إذا فسرت وقعت riyadu waxay ku xiran tahay shimbir lugtiisa ay ku xiran tahay kala laada hadii la fasiro waa dhacaysa marka hadii marba la fasiro ay dhacayso si wanaagsan u fasiro waxa ku riyootay adiga oo meel sare maaragtay qar ka soo dhacaya ka soo haawanay ama buur ka soo dhacaya ku riyoot hadaa tiraahdo khalaas waa ii dhamaato dhabarka kala jabaya oo noloshayda maaragtay khasaaro weyn ay ugu soo socdana waa leedahay qaabkaas hadaa u fakarto hadaa tiraahdo allah wixii culeysyo ahaa iyo humuum iyo walwalo dhan ayaa noloshayda ka dagaya hadaa tiraahdo waa heli kartaa amaba daynkii liigu lahaa tirada badnaa waa iga bixi doona ayadana waa leedahay si wanaagsan wax u fasiro si wanaagsan u fakar mar walba inaad fakartaa ama xumo ku fakartaa ama wanaag ku fakartaa energy ka baxaya mar walba qaab fakarkaas energy kaaga baxay hadii marka energy isku mid yahay maxaa ku dhibo ku haysta oo aad u beeran laadahay afkaarta wanaagsan iyo qaab fakarka wanaagsan noloshaada waxa saameyn weyn ku leh waxa aad had iyo gooraale ku fakarto waxaad noqonaysaa had iyo gooraale waxa aad ku fakarto ii sheeg wixii aad ku soo fakari jirtay waxaan kuu sheegayaa hadda waxa aad tahay ii sheeg waxa aad hadda ku fakarto inta badan waxaan kaaga waramayaa waxa aad noqon doonto mana ii qof qaybka yaqaanay ogow aqligaaga hadba qaabka u isticmaasho ayuu wax u soo saaraya haddaba waxaan leenahay si wanaagsan aqligaaga u isticmaal hadii aad miro xun ku beeri jirtay jooji oo miro wanaagsan hadda ku beer oo si fiican u adeegso aqligaaga miraha ku beeran mahadsanid